nabadgeliyaan halkan ku nimid nabadgelyada ha loo sara joogsado waliba kow culimada waxaan leeyahay jaaniskiini waa yaalaa kaalintiini way bannaan tahay ha loo sara kaco nabadgelyada dalka maanta waxaan nasiib u helay sheekh Almis iyo sheekh Mustafa bartankooga fadhiyo shaashadaha baan ka arki jiray dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh farxad weyn bay tahay sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo kulankan dawaaradan qiimaha leh ee milgaha iyo sharafta leh ee culimadii Soomaaliland oo dhan daadihinayso oo soo bilaabay sheekh Almis oo ka soo bilaabay Hargeysa waxaan maqlayay hadeer goboladii kale oo dhan bay soo marto awdal baa u dambaysa dareen yar bay galo waxaan war awdal iyada ugu horeyn jirtay maxaa loogu dambeysiyay musheekhda waxa leeyahay wixii kale bilaamaya nabadgelyadii Soomaaliland iyo buddigii dawladda maanta talinaysa ayaa ka bilaabantay khayrka hanagala bakhaylin ee nagu bilaaba taasi waa taa weeyaan dhalinyarada halkan soo fadhida ee qiimaha leh ee maanta nasiibka u heshay inta dawaaradan loogu magac daray sheekh albeledkeennii weynaa alla u naxariisto sheekh cali jawhar oo maanta dhaxalkii uu hayo inankiisii sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar boqorre oo mid bidixdayan fadhiya nasiib baad u hesheen markaskiina in loogu magac daro sheekheennii weyn alla u naxariisto alla yarxama nasiibka aad u hesheen kaga faa'iideysta cilmiga la soo koobay ee luqadda qalaad la yiraahdo intensive course waa luqadda qalaad laakiin waa la inii koobay alxamdulillah rabbil caalamiin nasiib baad u hesheen waxaana ka faa'iideysan kara cid ay u bilaaban tahay cid ayna u bilaabmayna haddii alla yiraahdo culimada waxaan ka codsanayaa macallimiinta sheekh cilmi naxwi oo halkaa midigteeda fadhiyo oo seedigaya inuu u bilaabo oo qalinka u qaato haddii alla yiraahdo waxaan idinku boorinayaa inaad ka faa'iideysataan oo aad u soo dhaweysaan nasiibka aad hesheen jaaniska in la beer dareeyo waa doqoniima inagu noqonaysaa musheekhda martida inoo ana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ee juhdiga geliyay ee dadaalay ee martida inagula jooga ee ay ka mid yihiin sheekh Mustafa Burco maanta waxaan nasiib u helay sheekh Almis iyo sheekh Mustafa bartankooga fadhiyo shaashadaha baan ka arki jiray aad iyo aad ayaan ugu farxay sheekh Tirir iyo waan isnaqaanay iyo musheekhda midigtayga xigta musheekhda Djibouti ka timid kililka shanaad ee walaalaheyn ka timid aad iyo aad baan iyagana u soo dhaweynayaa waxaan niga tagayaa nabadgelyo iyo barako ballanteenu waa nabadgelyo iyo horumar sidaan holooba hargudhagaygu ahaa markaan dalka imid waxaan culimada gobolka iyo culimada Soomaaliland ba ka codsanaya oo baaq dheer ugu diraya in nabadgelyada ay ka qayb qaataan nabadgelyada maanta gurmadka loo yahay inay ka qayb qaataan culimada Soomaaliland dhan gobolada oo dhan intaasna waa cilaam kii nabadgelyada waayo nabadgelyadu waa shayga koobaad ee ku noolahay halkan iskuma nimaadneen haddii ayna nabadgelyo jirin nabadgelyaan halkan ku nimid nabadgelyada ha loo sara joogsado waliba kow culimada waxaan leeyahay jaaniskiini waa yaalaa kaalintiini way bannaan tahay ha loo sara kaco nabadgelyada dalka